wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan halkani waa Samawada TV kusoo dhawaada falanqaynta arrimaha siyaasadda iyo sirdoonka caalamka qodobada wararkeena waxa ugu waaweyn xiisad ka soo cusboonaatay dalalka Hindiya iyo Pakistan dayuuradaha Hindiya oo dul haaday dooxadii ay isniintii hore Shiinaha isku laayeen Masar oo ciidamadeedii kala baxday magaalada Sirta iyo nawaaxigeeda iyo Turkiga oo jawaab kulul u diray Faransiiska iyo xiisadda labada dal oo ka sii dartay daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan Hindiya ayaa wadankeeda ka eriday karabar ka mid ah shaqaalaha safaaradda Pakistan ay ku leedahay caasimadda dalkaas ee New Delhi kadib markii ay ku eedeysay inay ku hawlanaayeen falal basaasnimo ah iyo wada shaqayn ay la lahaayeen ururada Islaamiyiinta ah dawladda Hindiya ayaa sidoo kale dhimi doonta shaqaalaheeda ku sugan safaaradda ay ku leedahay magaalada madaxda Pakistan ee Islamabad sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas ma jirto jawaab ilaa hadda si degdeg ah uga soo baxday dhinaca dawladda Pakistan oo arrintan ku saabsan xiriirka u dhaxeeya labada wadan ee ku hubeysan nuclear-ka ayaa meel xun gaaray kadib markii ay Hindiya 3 isbuuc ka hor wadankeeda ka eriday laba ka mid ah shaqaalaha safaaradda Pakistan waxa labadaasi qof lagu eedeeyay inay isku dayayeen aruurinta xog ku saabsan dhaqdhaqaaqyada militariga Hindiya warbaahinta Hindiya ayaa soo tabisay in tallaabada ugu dambeysay ee ay qaaday xukuumadda Delhi ay timid markii ay soo baxeen warar sheegaya in laba shaqaale oo Hindi ah lagu waxyeeleeyay magaalada Islamabad isbuucii la soo dhaafay dawladda Hindiya waxay dhigeeda Pakistan ku eedeysay inay afduubatay labadaas nin laakiin Pakistan waxay dhankeeda sheegtay in raggaas ay xireen booliska kadib markii gaari ay wateen uu jiiray qof wadada marayay sida uu shaaciyay wargeyska Hindustan Times labada wadan waxay ku heshiiyeen in mid walba uu 110 shaqaale ku lahaado safaaradiisa ku taala dalka kale inkastoo tirada shaqaalaha ay hadda tahay 90 go'aanka ay Hindiya qaadatay wuxuu ka dhigan yahay in labada wadan uu mid walba dalkiisa dib ugu ceshado 35 shaqaale muddo hal isbuuc gudaheed ah shaqaalaha safaaradda Pakistan waxay fulinayeen hawlgallo basaasnimo ah waxayna la shaqeynayeen ururo argagixiso ah ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya waxay wasaaraddu u yeertay wakiilka Pakistan u fadhiya Hindiya Said Haidar Shah si loogu sheegay eedeymahaas waxaa sidoo kale loo sheegay sida uu qoray wargeyska Hindustan Times in Pakistan ay handadaad ku sameysay saraakiil ka tirsan safaaradda Hindiya ee magaalada Islamabad ayna ka hor istaagtay fulinta hawlahooda diblomaasiyadeed Hindiya ayaa aaminsan in ciidamada amniga ee Pakistan ay Islamabad ku xireen labada nin kadib markii ay jirdileen isla markaana dambi uga dhigeen shil gaari oo aan waxba ka jirin iyo lacago been abuur ah oo ay iyaga jeebabka u galiyeen markii labadaas nin oo lagu kala magacaabo Dawimo Barahamas iyo Salfadas Bowl ay Hindiya ku laabteen maalintii Isniinta ayaa la sheegay inay sharaxaad ka bixiyeen qaabkii ay ula dhaqmeen ciidamada Pakistan booliska Pakistan ayaa dhankooda sheegay in raggaas xabsiga loo taxabay markii ay gaarigooda jiirsiiyeen nin rayid ah iskuna dayeen inay baxsadaan hase yeeshee ay goor dambe sii daayeen kadib markii ay ogaadeen inay diblomaasiyiin yihiin balse wax jawaab ah kama aysan bixinin eedeynta ku saabsan in raggaas la jir dilay horaantii sanadkii la soo dhaafay ayay heerkii ugu sarreysay gaartay xiisadda Hindiya iyo Pakistan Hindiya ayaa weeraro xagga cirka ah ku qaaday saldhigyo ay kooxo Islaamiyiin ah ku leeyihiin gudaha Pakistan isbuuciyo kadib markii weerar ismiidaamin ah uu ka dhacay gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir arrintaas ayaana sare u sii qaaday cabsida laga qabo inuu dagaal dhex maro wadamadan ku yaala koonfurta qaaradda Aasiya kuna hubeysan hubka nuclear-ka ugu yaraan 42 askari oo ka tirsan booliska sida militariga u tababaran ee dalka Hindiya ayaa lagu diray qarax ismiidaamin ah oo ay mas'uuliyadiisa sheegteen koox fariisin ku leh gudaha Pakistan ee lagu magacaabo Jaysh Muhammad xasarada ka soo cusboonaatay Hindiya iyo Pakistan ayaa timid xilli ay taagan tahay xiisad colaadeed oo u dhaxaysa Hindiya iyo Shiinaha
15 bishan Juun ayay 20 askari oo Hindiya u dhashay ku dhinteen dagaal gacanta la iskula tagay oo ka dhacay xadka u dhaxeeya labada wadan. lama oga khasaaraha gaaray dhinaca Shiinaha. Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi oo war soo saaray ayaa wacad ku maray in dalkiisa uu difaacan doono xadkiisa wax kasta oo ay ku qaadato. dhanka kale dawladda Shiinaha oo markii ugu horeysay maanta ka hadashay dhacdadii Isniintii ayaa sheegtay in Hindiya ay ka careysiinayso Shiinaha si ula kacna u dandaansanayso. labada dal waxa u dhaxeeya murankii ugu waqtiga dheeraa ee dhinaca xadka waxayna is hor fadhiyaan ku dhawaad nus qarni. dayuuradaha guuxooda ka dheereeya ee Hindiya ayaa gurxankooda laga maqlay dusha buuraleyda silsiladda ah ee Himalaya. wax lagu fasiray muruq muujin ku foogan Shiinaha oo Hindiya ku eedeeyay inay daandaasi ka wato xadka labada dal. halkaas oo lagu laayay askar Hindi ah oo ilaa 20 gaaraysa markii la isku qabtay dooxada Galwan 15 bishan oo ah Isniintii tagtay. dayuuradaha Hindiya ayaa ka duuray saldhig cireedka leh oo ah magaalada ugu weyn gobolka Ladakh ee ay Hindiya maamusho waxayna u duureen dhanka xadka buuraleyda ah oo u jira 240 kiiloomitir una dhiganta 150 mayl. waxaa sidoo kale halka ka socda isbaarooyin jidadka ka baxale lagu gooyay maadaama ay halka ka socdaan hawlo military iyadoo ay magaaladani ku taalo dhul 3500 oo mitir 11500 oo cagoodna ka sareysa moolka badda. waxaa halka laga soo sheegayaa layman dhaadheer oo ay ku jiraan gaadiidka Hindiya ee qaadaya jidadka u dhow magaalada Ladakh. haatan waxaan xoojinay ciidankeena halkan jooga ayuu yiri sarkaal isqariyay oo ka tirsan taliska waqooyi ee Hindiya oo wuxuuna u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Tashi Jebal oo ah kabtan howlgab ah oo ka tirsanaan jiray ciidanka lugta Hindiya ayaa sheegay in ciidanka ay Hindiya halka geysay uu yahay mid aan hore loo arag tiyo ay jirto xasaasiyadda ka jirta Kashmirta la isku hayo oo xiriirisa Hindiya iyo Pakistan iyo China. ila xogogaal ah oo dhinaca ammaanka ah oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in Cabdilfataax Siisi uu ciidamadiisii kala baxay magaalada Sirta iyo nawaaxigeeda. ila waraadka ayaa xaqiijiyay sababta Siisi ku kaliftay inuu ciidamadiisii kala baxo magaalada Sirta iyo nawaaxigeeda uu yahay kadib markii uu Siisi ogaaday inuusan ka hortagi karin weerarka ay qorsheynayaan inay ku soo qaadaan magaalada Sirta ciidamada dawladda dib u heshiisiinta qaran ee Liibiya iyo ciidamada Turkiga ee barigantaalaya. ka bixitaankan ayaa meesha ka saaraysa hanjabaadii Siisi ee ahayd in magaalada Sirta iyo saldhigga Al-Jufra u yihiin isaga khad cas. sidoo kale ila wareedyada ayaa shaaca ka qaaday in saraakiil military oo sarsare oo ka tirsan militariga Masar ay Siisi u sheegeen in ciidamada Masar aysan ka hortagi karin xawaaraha ay ku socdaan militariga Turkiga maadaama ay ka hortagi waayeen Turkiga dawladihii waaweynaa ee danaha istiraatiijiga ah ka lahaa dalka Liibiya. Masar ayaa ka mid ahayd dawlado dhowr ah oo sanado badan taageerayay maleeshiyaadka uu hogaamiyo Khalifa Haftar, laakiin dawladahaas ayaa hadda ka niyad jabay Haftar kadib markii uu lumiyay magaalooyin badan oo ku yaal galbeedka iyo koonfurta dalkaasi Liibiya. guuldarrooyinkii Haftar soo wajahay ayaa waxaa sabab u ahayd faragelintii degdega ahayd ee Turkigu ku sameeyay gudaha Liibiya taas oo wax ka bedeshay isku dheelitirka awoodda Liibiya. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegay in mowqifka Faransiiska uu iska indhatirayo xaqa sharciga ah ee Turkigu u leeyahay bariga Mediterranean-ka isla markaana damiciisa xagjirka ah uu dhaawacayo nabadda iyo xasiloonida. hadalkan ayaa yimid iyada oo dhawaanahan ay sii kordhaysay xiisad u dhaxaysay Paris iyo Ankara ee ku saabsan Liibiya. wasaaradda arrimaha dibadda waxay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku boorisay
inuu joojiyo tallaabooyinka khatarta gelinaya amniga iyo mustaqbalka Liibiya, Syria iyo bariga Mediterranean badalkeedana uu sameeyo hanaan wada xaajood. Faransiiska oo aan xeeb ku lahayn Mediterranean waa in uu fahmaa in uu dhaqanka sidii dal xeeb ku leh aysan xaq u siinayn go'aaminta arrimaha gobolka. Nasiib darro waa iska cadeyn muddo fog in Faransiiska uusan doonayn in uu horumarka bariga Mediterranean u qiimeeyo si dhexdhexaad ah oo caafimaad qab leh, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga. madaxweyne Emmanuel Macron inuu taageerada Turkiga ee dowladda Liibiya ku tilmaamo ciyaar halis ah kaliya waxa lagu sharaxi karaa inuu xaqiiqda ka baxsanayo, ayaa lagu yiri warka wasaaradda. qoraalka waxa lagu cadeeyay in Faransiisku uu door muhiim ah ku lahaa in Liibiya la geliyo qalaalaase uuna ciyaarayo ciyaarta qatarta ah ee Liibiya, iyadoo sidoo kale lagu sheegay qoraalka in ka aamusnaanta Faransiiska ee faragelinta Masar ee Liibiya ay tahay xaqiiq mudan in la xuso. isagoo ka hadlayay hadalkii Macron ee la xiriiray Turkiga iyo Liibiya ayaa faahfaahinka xisbiga talada haya ee Turkiga AK Party Umar Gelik waxa uu cambaareeyay mowqifka madaxweynaha Faransiiska waxaana uu yiri Faransiisku waa taageeraha siyaasadaha horumarinaya xasilooni darrada Liibiya iyo Mediterranean. dadka Liibiya ayaa go'aamin doona mustaqbalka Liibiya, Faransiisku ma go'aaminayo, ayuu Gelik hadalkiisa ku daray. siyaasadda Macron waxay taageeraysaa mucaaradka isku dayaya inay xadaan sharciyada iyo mustaqbalka dadka Liibiya. waxaa si cad loo arkaa kuwa eedeynaya madaxweynaheena iyo kuwa taageerada Turkiga ee Liibiya hor istaagtay inay yihiin gumaysi cusub, ayuu Gelik ku sii daray. warka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa yimid kadib markii uu Macron Isniintii ku eedeeyay in Turkiga uu ciyaar halis ah ku dheelayo Liibiya, taasi oo khatar ku ah gobolka dhan. xiisadda u dhaxaysa Ankara iyo Paris ayaa korortay sanadkii la soo dhaafay markii madaxweynaha Faransiiska uu sheegay in haddii aysan NATO jawaab ka bixin howlgalka argagixisada dirirka ee Turkigu ka wada waqooyiga Suuriya ay muujinayso in maskaxda xulufadu ay dhimanayso. xiisadda Ankara iyo Paris waxay ka sii dartay toddobaadkii la soo dhaafay markii Faransiisku dhaleeceeyay wax uu ugu yeeray gardarro halis ah oo maraakiibta Turkigu u geystaan kuwa Faransiiska ee ka tirsan howlgalka NATO ee Mediterranean, taasi oo Ankara ay ku tilmaantay mid aan sal lahayn. Macron ayaa tilmaamay intaas cadeynteedu ay khusayso NATO. guud ahaan falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka daawadayaal waa naga intaan qaybta xigta ku kulmayno. nabadgelyo.